kulanti wanaagsan daawadayaal halkan oo warbaahinta Soomaali Weyn Production kuna soo dhawaada barnaamijkeena qodobada aad ku daawan doontaan hadduu rabiid ma waxa ka mid noqonaya Puntland oo si adag kaga hortimaaday markii labaad talaabo ay qaaday filla Soomaaliya iyo khilaafka filla Soomaaliya iyo maamulka Puntland oo xilka isku sii shareeray laba arrin oo ay dawladda dhexe iyo dawlad goboleedka Puntland isku khilaafsan yihiin ayaan idin kula wadaagi doonaa barnaamijkeena qodobada kale waxa ka mid noqonaya Deni oo magacaabay Juxa Faroole taliye sirdoon xubno kale oo miisaan culus leh kadib markii uu ogaaday qorshe halis ah oo ay soo abaabushay filla Soomaaliya hadda waxaan idin soo gudbin doonaa Siciid Deni oo ugu dambeyn dhan u riday xiisadii ka dhaxololsanayd isaga iyo kooxdiisa Aranjan barnaamijkan ayaad ku daawan doontaan wararkana kalena waxa ka mid noqonaya damaca damul jadiid oo lumin kara mustaqbalka Soomaaliya iyo dawladda shisheeye oo ku dirirayo kheyraadka Soomaaliya oo ay xaraashayso filla Soomaaliya hadda waxaan idin wadaagi doonaa Soomaaliya oo lumin karta dawladda ay xiriir la leh sanado iyo filla Soomaaliya oo qaadaysa tallaabo aan laga fiirsan xilli madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo siyaasiyiin kale ay si weyn kaga digayaan tallaabada ay qaadaysa filla Soomaaliya barnaamijkan ayaan idin kugu soo gudbin doonaa qodobada kale waxa ka mid noqonaya ciidamadii ugu horeeyay oo Soomaali ah oo loo daabulay Masar iyo xog culus oo laga helay Xasan Sheekh Maxamuud oo iibsaday xiriirka qotada dheer ee Turkiga xilli mashaariic lagu wareejiyay xukuumadda Qaahira waxaa kala daawan doontaan waxa ka mid noqonaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo deegaano hor leh la wareegay deegaanada ay la wareegeen dagaaladii ugu dambeeyay qasaaraha dhimashada iyo dhaawacyada iyo wararkii ugu dambeeyay ayaan idin soo gudbin doonaa qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena daawadayaal u diyaar garow faafaynta qodobada aad daawateen haddii aan ku bilaabo dawlad goboleedka Puntland ayaa markii labaad si adag kaga hortimaaday tallaabo ay qaaday filla Soomaaliya tallaabadaasi oo la sheegay inuu yahay mid lagu xaraashayo kheyraadka Soomaaliya wasaaradda kalluumeysiga dawlad goboleedka Puntland ayaa si adag kaga hortimaaday go'aan dhawaan ka soo baxay wasaaradda kalluumeysiga dawladda federaalka ee Soomaaliya kaasi oo la xiriira shati bixinta kalluumeysiga qoraalkan ka soo baxay 22 bisha wasaaradda kalluumeysiga dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in shati aanan ka soo bixin wasaaradda ay u aqoonsan yihiin waxba kama jiraan cidii ku kalluumeysatana ay ku jirto liiska kuwa sharci darrada lagu eedeynayo wasaaradda kalluumeysiga ee dawlad goboleedka Puntland ayaa war-saxaafadeedka ay soo saartay waxa ay ku sheegtay go'aanka dawladda federaalka in uu yahay mid sharci darro ah isla markaasina si toos ah uga hor imaanayo qodobka 44 ee dastuurka kaasi oo dhigaya in qaybsiga kheyraadka dalka ay ka wada xaajoon karaan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah waayadii ugu dambeeyay waxa si weyn u xoogeysanaya muranka ka taagan arrimaha ku aadan kheyraadka Soomaaliya oo ay dawladda federaalka ee Soomaaliya dawladda shisheeye iyo hay'ado ka tirsan Jumciyadda Qurumaha ka dhaxaysa ee qaramada midoobay ee dawladda federaalka ee Soomaaliya wada xajood kala gashay waxaana wasaaradda kalluumeysiga ee Soomaaliya ay doonaysay in maamul goboleedyada cadaadis lagu saaro inaysan heshiis la gelin dawladda shisheeye qoraalkan laga soo saaray wasaaradda kalluumeysiga Puntland waxa lagu yiri wasaaraddu waxay aad uga xun tahay hadal qoraaleedkii ka soo baxay shirkii 21 bisha 9 2022 dhaxmaray wasiirka kalluumeysiga dawladda federaalka iyo safiir ajnabi ah sida lagu sheegay qoraalka Puntland ay soo saartay war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in go'aankaasi uu si toos ah u baalmarsan yahay heshiiskii ka dhacay Beedhabo Addis Ababa kuwaasi oo qeexaya qaybsiga kheyraadka dalka Soomaaliya kaasi oo cadeynaya in wixii ka hooseeya 24 nautical miles ay mas'uul ka yihiin maamulada dalka haddii aan la xurmeynin qodobada dastuuriga ee sida tooska u farayo dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah in aanay ka wada xaajoonin kheyraadka dabiiciga ah waxay halis ku noqonaysaa deganaanshaha amni ee dalka taasi oo horseedi doonta xasilooni darro siyaasadeed ayaa sidoo kale qoraalka la raaciyay qoraalkan ayaa u muuqda in maamulka Puntland uu si weyn ugu hanjabayo inuusan filla Soomaaliya aysan ka ogolaan doonin qorshaha lagu doonayo in lagu xaalufiyo kheyraadka Soomaaliya iyada oo aanan qayb laga siinaynin maamul goboleedyada dalka waa markii labaad oo ay maamulka Puntland ka hor yimaadaan qorshaha filla Soomaaliya hore waxa uu maamulkaasi kaga hor yimaaday qorshaha xaraashka shidaalka Soomaaliya geeska kale tan inta aan ka bixin wararka la xiriira maamulka Puntland hogaamiyaha maamulka Siciid Cabdullaahi Deni ayaa magacaabay Juxa Faroole taliyaha sirdoonka iyo xubno kale oo miisaan ku leh siyaasadda Puntland kadib markii uu ogaaday duulaan weyn oo ay dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku tahay maamulkiisa waayadii ugu dambeeyay oo ay xoogeysteen Siciid Deni
iyo kooxdiisa Arranjan khilaafka ka dhaxeeya isla markaasina la rumaysan yahay inay gadaal ka riixayso dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa madaxweyne Deni waxa uu durbaba isku shaandhayn ku sameeyay wasiirada isaga oo xilka qaadis ku sameeyay kuwa saaxiibadiisa ah. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa magacaabay wasiiro cusub oo ku biiraya xukuumaddiisa kadib dekreeto oo uu xalay ka soo saaray xafiiskiisa, taasi oo qodobada loo cuskadana ay ka mid tahay baahi loo qabo dhamaystirka golaha xukuumadda dowlad goboleedka Puntland. Dhinaca kale, madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa isla xalay waxa uu magacaabay agaasimaha nabad sugidda iyo sirdoonka dowlad goboleedka Puntland isagoo u magacaabay Sariye Guuta Jamaal Carab Yuusuf, kaasi oo loo magacaabay inuu noqdo agaasimaha hay'addaasi. Madaxweyne Deni ayaa sida lagu sheegay war-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiskiisa waxa uu go'aankani kala tashaday ku-xigeenkiisa Axmed Karaash, waxaana uu soo magacaabay 5 wasiiro hore. Cabdi Faarax Juxa, wasiirkii hore ee arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayuu Siciid Deni u magacaabay wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda maamulka Puntland. Sidoo kale, wasiir hore u joogay wasaaraddaasi arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad ayaa waxaa loo magacaabay wasiirka maaliyadda Puntland, waxaana meesha ka baxay Xasan Shir Abgaal oo saaxiibo dhow la ahaa madaxweynaha Puntland Siciid Deni. Madaxweyne Siciid Deni ayaa sidoo kale Maxamed Saciid Maxamed Faroole waxa uu u magacaabay wasiirka qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ee Puntland. Halka xiligaas hadaleynta ugu weyn ayaa waxay ka taagan tahay Siciid Deni oo wasiirkiisa qorsheynta mar qura inta uu xilka joogay isugu bedelay agaasimaha telefishinka Puntland, wasiirka qorsheynta iyo ugu dambeyn darajo ciidan la gaarsiiyay, isla markaana loo magacaabay taliyaha sirdoonka Puntland lana siiyay darajada Sariye Guuto, taasi oo hadaleyn weyn ka abuurtay marigada ay ku kulantay bulshada. Maxamed Cabdiwaxaab Axmed ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta maamulka Puntland, halka Cabdirasaaq Cumar Ismaaciil isaguna loo magacaabay wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda maamulkaasi. Siciid Deni ayaa tallaabooyinkani qaaday xilli uu ogaaday dullaan ay ku tahay filla Soomaaliya, isla markaasina ay doonayso in Siciid Deni ayaa tallaabooyinkani qaaday xilli uu ogaaday dullaan ay ku tahay filla Soomaaliya, isla markaasina ay qorsheysay in fadhiga baarlamaanka Isniinta toddobaadkan qabsoomayo qaar ka mid ah wasiiradiisa ee golaha wakiilada Puntland ay xilka ka xayuubiyaan, taasi oo siyaasaddiisa fashil ku ah. Deni ayaa sidoo kale waayadii ugu dambeeyay isku dhacsanaayeen kooxdiisa Arranjan ee dhisay xilligii doorashada, waxaana uu fahamsan yahay hogaamiyaha Puntland in tallaabooyinkani dhan laga soo abaabulayo filla Soomaaliya. Geesta kaleetana, damaca waalida ah ee Damul Jadiid ayaa lagu waramayaa inuu lumin karo mustaqbalka Soomaaliya iyada oo dowlado shisheeye ay ku dirirayaan qaybsiga kheyraadka Soomaaliya oo ay xaraashaysa filla Soomaaliya. Waayadii ugu dambeeyay filla Soomaaliya ayaa waday qorshayaal ay ku xaraashayso shidaalka Soomaaliya, kaasi oo ay si weyn ugu loolamayaan dowlado shisheeye. Dowladda federaalka ee Soomaaliya tallaabada ay qaadayso ayaa lumin kara mustaqbalka Soomaaliya iyada oo dowlado waaweyn oo ay xiriir la lahayd sanado badan haatan Damul Jadiid ay u muuqato inay luminayso, taasi oo ay dad badan ay u arkaan inay noqon karto luminta mustaqbalka Soomaaliya. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa haatan hoggaanka talada hayo waxa ay si toos ah u qaadeen tallaabo lagu xaraashayo kheyraadka Soomaaliya, taasina waxa ay soo dedejisay in wadamada Carabta ay si weyn ugu loolamaan dowladaha isku haya helidda qandaraaska kheyraadka Soomaaliya. Waxaa ka mid ah dowladaha Imaaraadka, Qatar, Turkiga, kuwaasi oo dhammaantoodba saameyn togan ku leh Soomaaliya. Balse arrinta sida weyn indhaha lagu hayo ayaa waxa ay tahay sida dowladda federaalka ee Soomaaliya ay kaga galan doonto dowladahan sida weyn indhaha ugu eegayo helidda mashaariicda xaraashka shidaalka Soomaaliya, si ay dowladahaasi u helaan miisaaniyadda ugu weyn kheyraadka Soomaaliya. Warinadii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay kheyraadka Soomaaliya ay ka xaraashtay dowladda Imaaraadka Carabta, taasi oo ay si weyn kaga caroodeen dowladaha Qatar iyo Turkiga. Soomaaliya ayaa haddii ay dhabahaasi qaado lumin karta xiriirka dowladaha Qatar iyo Turkiga, kuwaasi oo la fahamsan yahay in sanadadii ugu dambeeyay si taban iyo si toganba ay saameyn ugu lahaayeen siyaasadda Soomaaliya. Dowladda Turkiga ayaa in badan saameyn ku leh mashaariicda Soomaaliya, iyadoo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka caawiso mashaariic ay ka mid yihiin tababarada ciidamada qalabka sida. Waxaana haatan damaca waalida ah ee Damul Jadiid dadka siyaasadda rogroga ay ku fasirayaan inuu yahay mid aanan ka fiirsasho lahayn. Hase yeeshee, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku adkeysanaya in uu xaraasho shidaalka Soomaaliya isaga oo guddi wasiiro ah oo u badan kuwa xulafadiisa ah, ama sida dadka dhaliilsan ay sheegayaan kuwa Damul Jadiid ah uu madaxweynuhu u saaray si ay u suuq geeyaan shidaalka Soomaaliya.
maamul goboleedka Puntland ayaa ka mid ah maamulo si weyn uga hor yimaaday qorshahan damaca waaliga ah ee damul jadiid kaasi oo ay maamulka Puntland si la mid ah sida ay dadka rogroga siyaasadda ay qabaan ay ku tilmaameen inuu yahay damac waali ah oo lumin kara mustaqbalka Soomaaliya. geesta kaleetana ciidamadii ugu horeeyay oo Soomaaliya ayaa loo daabulaya wadanka Masar iyada oo xog culus laga helayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo iibsaday xiriirkii qotada dheeraa ee Turkiga kala dhaxeeyay iyadoo mashaariicdii ay ka mid ahaayeen tababarada ciidamada lagu wareejiyay xukuumadda Qaahira. Toddobaadkan waxaa magaalada Muqdisho soo gaaray safiirka dowladda Masar oo ay weeliyaan saraakiil ciidan isaga oo la kulmay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xamza Cabdi Barre. kulanka safiirka wadanka Masar socdaalka safiirka dowladda Masar uu ku yimaaday magaalada Muqdisho waxaa ka horeeyay mid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya uu ku tagay magaalada Qaahira ee dalka Masar halkaasi oo ay dhinacyadu ka wada hadleen arrimo dhowr ah ay ka mid tahay tababarada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. haddii dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ogolaateen ciidamadii ugu horeeyay loo qaado wadanka Masar waxay ka dhigan tahay in mashruucii tababarada ciidamada qalabka sida laga wareejin doono dowladda Turkiga oo waayidii ugu dambeeyay khilaafka kala dhaxeeya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya uu dibadda imaanayay kadib markii horaan dowladda Turkiga ay si weyn ay kaga xumaatay tallaabo ay qaaday dowladda federaalka ah ee Soomaaliya isla markaasina mashaariic ay ka wada heshiiyeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud lagu wareejiyay dowladda Imaaraadka Carabta. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa u muuqatay inay ka tashatay xiriirka si xumaanaya ee kala dhaxeeya dowladda Turkiga taasi bedelkeedana waxa ay mashaariicdii tababarada ciidamada ku wareejisay dowladda Masar. ila wargal ah ayaa tilmaamayay in kulankii ugu dambeeyay dhexmaray ra'iisul wasaare Xamza iyo safiirka dowladda Masar ee magaalada Muqdisho soo gaaray intooda ugu badan lagu gorfeeyay nooca cusub ee loo qaadayo dowladda Masar iyadoo ay xusid mudan tahay in markii ugu horeysay ay noqonayso in ciidamo Soomaali ah loo qaado wadanka Masar si halkaas ay ugu soo qaataan tababaro ciidan. dowladda Masar ayaa tan iyo markii uu la wareegay talada Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay si weyn ugu soo dhawaaneysay xiriirka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya taasina waxa la rumaysan yahay inuu fududeeyo taliyaha sirdoonka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad oo intiisa ugu badan xiriirkiisa waxbarasho ku soo qaatay dowladda Masar si la mid ah mararka qaar lagu sifeeyo inuu yahay sargaal sirdoon oo ka tirsan dowladda Masar. gudaana daawadayaal intaas ayaan ku soo meeraya barnaamij wareedkeena subaxnimo intaynu ku kulmi doono mid laceena barnaamij wareedka nabadgelyo.